Waa mar kale iyo muuqaal cusub. Maanta waxaan rabaa inaan idin tuso qaabkaad u samaysan lahayd muuqaal noocan ah, maadaama aad iga codsateen. Muuqaalka haddii aan halkan soo saaro copyright ayuu leeyahay, marka sidaas darteed waxaan soo dhigay qaybta Telegramka, halkaas ka eeg. Marka balaan bilowno. Marka hore waxaad soo qaadanaysaa playerka aad rabto editka inaad ku samayso iyo playerka dhe sawirkiisa. Marka aad soo qaadato waxaad tagaysaa browserka, kadib waxaad qoraysaa magacan. Midkaan u horeeyo ku dhufo. Marka uu ku keeno interface-kan, kadib qaybtan waxaad ku xiranaysaa Gmail. Marka aad Gmail-ka ku xirato, waxaad tagaysaa qaybtan ay qoran tahay transition. Kadibna marka uu qaabkan kugu soo baxo, qaybta sawirka koowaad waxaad gelinaysaa playerka kale. Sawirka labaadna midka aad rabto editka inaad ku samayso. Kadib qaybtan waxaad qoraysaa promptigan. Marka waxaad ku dhufanaysaa generate. Saa u jeedid waa uu noo samaysmay. Marka haddii aad rabto inaad la soo degto, waxaad ku dhufanaysaa calaamadaas. Marka haddii uu ka diido inuu kuu soo dego, waxaad sii aadaysaa halkan, waxaad WhatsApp ayaad ku share garaynaysaa. Qofkii aad u share garaysay marka uu soo dego, kadib isna mar labaad ayuu ku soo diraa. Sidaas ayaa galeriga ku imaanaya. Soo fur Alert Motion, kadib waxaad ku dhufanaysaa calaamadan plus, qaybtan ka sii dooro. Marka hore waxaan soo qaadanaynaa codka, waayo codka la'aantiisa wax ma edit garayn karno. Markaad codka soo qaadato, waxaad tagaysaa mar kale qaybtan video, kadib waxaad soo qaadanaysaa videogii aan ku soo sameynay AI-ga. Kadib soo gasho. Saa u jeedid halkaas waxaa saaran loogada AI-ga. Marka halkan tag, kadib xoogaa zoom soo dheh si loogada aan u qarino. Kadib waxaad tagaysaa videogii hadda aan ku soo darsanay qaybtiisa ugu dambeyso tag. Waxaad ku qabanaysaa calaamadan. Marka xoogaa gadaal u soo laabo haddana mar labaad calaamadii ku qabo. Kadib labadaas calaamo inta u dhaxaysa muuqaalka jar. Kadib calaamadan plus ku dhufo, waxaad ku soo darsanaysaa muuqaalada aad rabto inaad editka ku samayso. Marka waxaadna isu dul saaraysaa qaabkan aan u sameeyay. Kadib waxaad u soo laabanaysaa muuqaalkii ugu horreeyay aan jarnay. Midkaas u soo laabo, ku dul dhufo. Kadib waxaad tagaysaa qaybtan ay qoran tahay effect, add effect ka sii dooro. Kadib waxaad ku soo darsanaysaa effectigan. Effectiga markaad ku soo darsato, mar labaad ku dul dhufo, kadib waxaad furaysaa buttonkan. Kadib dib ugu soo laabo, mar labaad add effect ku dhufo. Kadib waxaad ku soo darsanaysaa effectigan. Mar labaad isna ku dul dhufo. Kadibna qaybtan waxaad geynaysaa 1.50K. Haddana dib ugu soo laabo mar kale waxaad ku dhufanaysaa add effect. Waxaan rabnaa inaan isticmaalno effects badan. Marka waxaad ku soo darsanaysaa effectigan. Kadib ku dul dhufo. Qaybta u horeyso waxaad qabanaysaa keyframe. Keyframe koowaad ka fogow, mar keyframe labaad ku qabo qaybta ugu dambeyso. Kadib tiradan waxaad geynaysaa 1.15K. Markaad geyto waxaad tagaysaa qaybta graph, kadibna waxaad ku daraysaa graphkan. Haddana dib u soo laabo, add effect ku dhufo. Kadibna waxaad ku soo darsanaysaa effectigan. Effectiga ku dul dhufo, kadib calaamadda waxaad geynaysaa muuqaalka dhexdiisa tag, kadib waxaad u qabanaysaa keyframe. Keyframe koowaad marka tiradan 0K. Gadaal u bax keyframe labaad ku qabo. Keyframe-ka labaad marka tiradii aad 0 geysay soo celi, waxaad geynaysaa 148. Kadib keyframe-ka dhinacaan dhig. Waxaad tagaysaa qaybta graph adigoo weli dhex jooga, kadibna waxaad ku daraysaa graphkan. Adigoo dhex jooga effectii ugu dambeeyay ku soo darsatay, waxaad tagaysaa qaybtaas ay qoran tahay evolution. Kadib waxaad dhexda u qabanaysaa keyframe. Keyframe koowaad marka ka tag keyframe-ka labaad. Tiradan waxaad geynaysaa 5.00. Kadibna qaybta graph tag, waxaad ku daraysaa graphkan. Mar kale add effect tag. Kadib waxaad ku soo darsanaysaa effectigan. Markaad ku soo darsato adigoo keyframe waxba u qabanin, midaan xoogaa gadaal u celi, tiradeed waxaad geynaysaa 30. Kadib qaybtan evolution ku dhufo. Qaybta ugu dambeyso keyframe ku qabo. Iskaga soo tag keyframe koowaad. Keyframe-ka labaad u soo laabo. Tiradan waxaad geynaysaa 2.00K. Kadibna waxaad tagaysaa qaybta graphka, waxaad ku daraysaa graphkan. Mar kale waxaad tagaysaa add effect, kadib waxaad ku soo darsanaysaa effectigan. Marka waxaad tagaysaa centerka, kadib waxaad u qabanaysaa keyframe. Keyframe kood marka 0K dhammaantood. Gadaal u laabo, keyframe labaad ku qabo. Marka keyframe-ka labaad tiradan waxaad geynaysaa 300K. Kadib waxaad tagaysaa qaybta graph, waxaad ku daraysaa graphkan. Effectigan ku soo darso, dhexda waxaad u qabanaysaa keyframe, waxba ku sameynin. Keyframe kale gadaal ku qabo, tiradan marka waxaad geynaysaa 1.00K. Kadibna muuqaalka haddana qaybtan u dambeyso tag adigoo weli ka dhex bahin effectiga. Keyframe ku qabo. Marka tiradan iftiinkii aad ku furtay dib u soo celi. Waxaad geynaysaa 1.00 iyadana K.
kadib labadan keyframe dhexdooda waxaad gelinaysaa garaafkan, labadan kale dhexdooda waxaad gelinaysaa garaafkan. Marka intaas sameyso qaybta effectiga dib ugu soo laabo, muuqaal ku dul dhufo, waxaad taabanaysaa calaamadaas, kadib waxaad kasii dooranaysaa copy layer. Marka intaas sameyso kadib waxaad tig soo saaraysaa muuqaaladii kale aadan ku sameyn wax edit ah. Markaad tig soo saarto calaamadaas ku dhufo, kadib waxaad sii dooranaysaa paste style. Marka ay ku soo baxaan icon-nadan dhammaantood tigda ka qaad marka laga reebo midaan. Qaabkan aan u sameynaa u sameey. Marka intaas sameyso kadib paste ku sii dhufo. Muuqaalkaas kaliya ayaa edit gareynay, inta kale editkii midkaas aan ku sameynay sidaas ayaan ku wada gaarsiinay oo waa inoo edit gareysan yihiin. Kadib waxaad dul tagaysaa muuqaalkii aan editka ku sameynay midkii u horeeyay maaha, midka labaad ku soo xigo dul tag, kadib qaybta ugu horeyso marka aad calaamadda ku aadiso waxaad tagaysaa calaamadan plus waxaad ku soo darsanaysaa shape. Marka shape-ka muuqaalka dhammaantiis ku wada qari, kadib shape-ka dhinacan iska jar oo intaan yar soo reebo. Calaamadan ku dhufo, qaybta ugu horeyso keyframe ku qabo. Markii keyframe-ka koowaad ka fogow, keyframe labaad ku qabo, keyframe-ka labaad marka opacity-ga waxaad geynaysaa 0 waxaad tagaysaa qaybta color-ka, shape-kana color-kiisa waxaad ka dhigaysaa white ka soo dhig. Shape-ka ku dul dhufo, markaad ku dul dhufato waxaad tagaysaa calaamadaas, kadib waxaad sii dooranaysaa copy layer, kadib waxaad dul tagaysaa muuqaal walba halka uu ka bilowdo dul tag, kadib ku paste garee shape-kan. Markaad dhammaantood intaas ku sameyso waxaad tig soo saaraysaa dhammaan shape-kan, kadib waxaad kasii dooranaysaa calaamadan. Saa u jeedid waxa ay noo noqdeen hal group. Kadib muuqaalkaaga soo download gareyso, waxaad soo furanaysaa CapCut, kadib muuqaalkii hadda soo edit gareysay soo geli. Waxaad tagaysaa qaybta effect, kadib waxaad ku soo darsanaysaa effect-gan. Effect-gan marka tiradiisa waxaad gelinaysaa 50. Mar kale qaybta effect ku dhufo, kadib ku soo darso effect-gan. Speed-kiisa waxaad geynaysaa 10, midka kalena waxaad geynaysaa 15. Mar kale dib u soo laabo effect tag, kadib ku soo darso haddana effect-gan. Midkan intensity-giisa waxaad geynaysaa 40. Kadib saddexdan effect soo copy gareyso, muuqaalada kale hoostooda dul dhig marka dhammaantood qaabkan ku sameey.